mar haddaad nooshahay fursad ayaad haystaa. mar haddaad nooshahay ilaahay maxay toolay fursad ayuu ku siiyey inta aad nooshahay insha allah inaad maxay toolay ku dadaasho sidaad aakhiro iyo adduunba u liibaan lahayd. waxaan weydiiyey hadafka guud uu nolosha ka leeyahay waxaana uu ii sheegay in uu yahay raalli ahaanshaha ilaahay. isagoo laba jira ayuu xanuun indhaha kaga dhacay kadibna dalka gudihiisa ayaa waxba lagaga qaban kari waayay waxaana loo qaaday waddanka Sacuudiga. dhakhaatiirta Sacuudiga ayaa waxay sheegeen in labada indhoodba laga soo saaro si xanuunku aanu ugu fidin qaybaha kale ee jirkiisa gaar ahaan maskaxda. markaasi waxa uu ii sheegay in hooyadii aad u murugootay kadibna aabihii uu ku yidhi ha murugoonine samir waa suurtagal in uu carruurtaada oo dhan kaaga khayr bato ama kaaga anfac bateen. waana kelmad ilaa xilligan uu aad u xasuusto oo saameyn ku yeelatay noloshiisa oo dhan. waxa uu ku guuleystay ilaa 3 tartan oo quraanka kariimka ah oo ka dhacay magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag. sanadkii la soo dhaafayna waxa uu ka qayb galay tartanka quraanka kariimka ee madaxweynaha Soomaaliland uu maalgeliyo waxaana uu galay kaalinta 7. sanadka ayaa waxa uu ku guuleystay kaalinta 1 ee tartanka quraanka kariimka ee guud ahaan Soomaaliland ee uu maalgeliyay madaxweynaha Soomaaliland waxaana uu madaxweynuhu hadiyad u guddoonsiiyay gaari. علومta quraanka kariimka oo qura ma yaqaano ee waxa uu yaqaanaa oo ku hadlaa luqadda Carabiga, luqadda Ingiriisiga, sidoo kalena culumta kala duwan ee shareecada ayuu wax ka yaqaanaa. waxa uu sheegay in culumta tiknoolajiyadda uu si fiican ula socdo inkasta oo aanu indhaha waxba ka arkayn. qofkan ka hadlaya waa Cabdiraxmaan Sheekh Jaamac Saalax oo ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ee guud ahaan Soomaaliland ee sanadka ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu maalgeliyay. waxaan kula kulmay magaalada Hargeysa oo aan waraysi kooban kaga qaaday ka hor intaanu bixin magaalada Cerigabo oo ah halka uu ka soo jeedo ee uu ka soo kicitimay tartankana uu ku metelayay. ugu horreyn waxaan weydiiyey bal intaanu iga sheekay noloshiisii yaraanimadii iyo sidoo wax ku bartay iyo caqabadaha soo wajahay iyo noloshiisa kale iyo qiimaheeda kala duwan in uu codkiisa aadka u tolman ugu maqashiyo qaybo kamid ah quraanka kariimka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الرحمن بعض ما سنتهاي إلهي هذا القرآن الكريم كاه إنه أنفع دمانتين به مركب كوباد عبد الرحمن وحكات كلالتي حكات كبربارتي حكات كسوكرت. waxaan ku dhashay magaalada Cerigabo aan ku soo barbaaray oo ku soo koray alxamdulillaah hadda ku soo
ilaa iyo hadda iyadaad ku sugan tahay. Cabdiraxmaan, intaynaan u tegin guushaada iyo dareenkaaga iyo waxyaabaha la xidhiidha, goormaad markii ugu horreysay aragga weyday? صح كمان دالن لما تصير أنا جاي أيام حياتي مركي بقول رئيسي اللي يقول عركي حنون مركي لباري وحلي الحنون كودن كلي سحب الله يوم قبل كره إذا خاطر تتري وحلي قاضي ودن كإثيوبيا مجال ده الله الناسرين مجال ده الناسرين ده هو حياتي حنقول سجود بمجال ده عتصوّه kadibna wadanka Sacuudiga waxa isku noqonaysa muddadaas muddo 5 bilood ah xanuunku wuxuu ahaa xanuun la dhaho kansarka caruurta indhaha marka halkaas ayaa la yiri maxay toole waa in amaliyad loogu sameeyaa ama qalliin loogu sameeyaa isbitaal ku yaala magaalada Riyadh wadanka caasimadda wadanka Sacuudiga ayaa maxay toole qalliinka lagu sameeyay 2006 الحمد لله خاطرتي مركي waxay go'aamiyeen in si markaas noloshada loo badbaadiyo in maxay toolay qalliinkaas maxay toolay laga saaro labada indhoodba alxamdulillah qalliinku guuleystay inta wixii ka dambeeyayna waxaan ku noqonayay wadanka Sacuudiga markii la joogo 2 sano mar xanuunka laba sanadood mar baad Sacuudiga lagu celinay ku laabanaysa bimacna si xanuunkii loo daba galo in uu soo noqday si xaaladiisa bimacna warhayn loogu sameeyo looga warhayo alxamdulillah ilaahay way iga caafiyay sheekadaas iyadoo aan iska soo koobay ay maxay toolay lahayd faahfaahin badan wata faahfaahinaha aad imika aad tiri waan soo koobay maxaa kamid ah waxaa kamid ah markii ugu horeysay magaalada Caarigaabo yani wadankeena la yiri waxba lagama qaban karo magaalada Hargeysa isbitaalka Manhal xugish kayaab yani inuu ahaa dadkii ugu horeeyay lagu baaray aan kamid ahaa waagii la furay isbitaalka Manhal macluumaad waxaan ma leeyahay hadaan hadda xogtiga khaldanayna sida ahayd ama qaybta indhaha hadii maxay toolay aan khaldanayn marka doctor Shiile iyo maxay toolay dhakhaatiir kale kadibna markii arintu iska soo jiitantay ay aakhirkii timeen wadan dibadda la yaqaado wadamo badan ayaa maxay toolay yani la xawlay oo la isku dayay macna in la yaqaado ilaahay wuxuu fududeeyay wadanka Sacuudiga oo dad muxsiniina oo maxay toolay aan ilaahay ka sokow maanta uga abaal sheeganay macna inay abaali galeen ay iga caawiyeen in maxay toolay dhakhtarka halkan wadanka lagu soo daawaan dhakhtarku soo helo dadka hadii aan magacyadooda sheego maxay toolay badan yihiin laakiin muxsina amiirunduux la dhaho ayaan halkan ka xuseeyaa aan ugu ducaynay halkan maadaama maxay toolay xanuunsanayo inuu ilaahay maxay toolay caafimaad siiyo. Cabdiraxmaan, markaa waad soo laabatay magaalada Caarigaabo, waxaad ku soo laabatay diin kastoo aad yareed adigoo labadaadii indhood aan markaa aan qabin. goormaad bilowday quraanka? quraanka waxaa bilaabay markaan 4 sano jiray ayaan bilaabay quraanka. dadku waxay isweydiinayaan inta badan waxa la weydiiyaa sidaad quraanka ku baratay ama maxay toolay quraanka markii hore macalinka ayay marin jiray laaga jisaasiyo aabe ayaa guriga macalin igu qabtay macalinkaas ayaa quraanka ii dhigi jiray macalin Anwar oo halkan uga mahad celinayo waagi dambe cantiladeen ka dhigaysan jiray intaan yani mobilada aan la gaarin maraaxil badan buu soo maray quraanku ilaa 3 macalin ay soo dhigay dhamaantood hadda halkan ay uga mahadnaqaya macalin Anwar, macalin Awil, macalin Cabdiraxmaan marka quraanka barashada sidaas ayaan ku bilaabay markaan 4 sano jiray. marka macalinku intuu ku mariyo ayaad adna qaybi jirtay? macalinku markuu ii mariyo
maadaama ilaahay maxaa toole igu nicmeeyey xagga xifdiga ayaan qeybi jiray xaafadana waa laigu celin jiray oo ama aabe ama hooyo ama maxaa toolay walaalahay ninkayga weyn jaabir asagana halkan maxaa toolay ka xuseeyo magaciisa waan aada ugu mahad celinayo dadkaas dhan waa igu celin jiray kadibna saasaan kaga soo bixi jiray yacni maanta oo kale waxaan qaadanayaa safxad barhkeed ama 2 aayadood markii uu bilowga ahaa oo kale kadibna maxaa toolay intaasaan soo qeybayaa ama canjiladaan kasoo dhegeysto yani waxay dhahaan talqiin bay dhahaan qaabka noocaas qaabka dhegeysigaan qur-aanka kusoo xifday. imisa sano kadib baad qur-aanka xifdisay adigoo 4 jiraad bilowday markaa imisa kadib baad qur-aanka xifdisay? aduu ilaa intaan dhowr iyo 10 sano ka gaadhayay waan waday qur-aanka maadaama aanan marka hore xawli badan aanan ku wadin muddo badan ay qaadatay alxamdulilah akhirka waa xifdiyay. markii dambe tartamada aad ka qayb gashay tartankii ugu horreeyay aad ka qayb gashay ma xasuusataa? si fiican. haye waxaa lagu qabtay masaajidka maxamed cali gobolka sanaag magaalada Cayrigaawo 10 sano ayuu ahaa 10 juz ayuu ahaa tartankaas ayaa tartanaan galay ugu horreeyay. markaasaad ku guuleystay oo kaalinta koobaad aad gashay? kaalinta koobaad baan galay. tartankii kugu xigayna? tartankii waxaa 15 juz sanadii ku xigtay tartanku waa tartan ramadaani oo laga qabto gobolka sanaag isna waxaan ka galay kaalinta koobaad 15 juz sanadkii kusii xigay isla sidoo kale 30 juz waxaan ka galay kaalinta labaad ma sanadka ka galay. maasha allah. markii dambe waxay noqotay inaad u tartanto heer qaran? mar haddii gobolkii la soo dhameeyey heer qaran baa loo soo dalacay. magaalada Hargeysa ayaan markii ugu horeysay 2022kii yani tartanka madaxweynaha tartankaas ayaan galay sanadkii hore kaalinta 7aad ayaan maxaa toole soo gaadhay sanadkan ayaa igu xigay. cabdiraxmaanow dhinaca akhriska maxaad isticmaashaa markaad doonaysa inaad wax akhrido oo kale? xagga dhegeysiga baad yacni hadda oo kale markaan doonayo inaan maxaa toolay kitaab aan akhristo youtube-ka ayaan ku qorayaa isagoo maxaa toolay macnaa dhegeysiga ama qof baa ay akhriyaya ama qof baa ku saas akhriya? marka sidaas ayaan maxaa toolay kutubta inta badan ku akhristaa ama mobiilka aan isticmaalo oo maxaa toolay uu barnaamijkaygu maxaa toolay programsan yahayaan isaguna way akhriya. marka qur-aanka laga tago waxyaabo kaloo aad baratay ma jiraan? waxaa ka mid a culumta xagga culumta shareecada xadiiskii fiqigii inkastaanan gelin machad maxaa toolay tacliim nidaamiya laakiin waxaan ku bartay qaabka dhegeysiga oo maxaa toolay memoriga ayaan wax badan maxaa toolay dhegeysanayay culimadeena ilaaha barakeeyo. xagga kale waxaa jira xagga xifdiga mutuunta culuum qur'aan culumta la dhaho la xidhiidha tusaale ahaan matnu tuxfat alatfaal tajwiida aljazariya isna tajwiida matnu shaadibiya isna isagu cilmu lqira'aat ama 10 qiraa'o kasoo wariyaya ayaan maxaa toolay 3daaba xifdiyey welina waan wadaa insha allah mustaqbalkan waxay qorshaysan inaan ku daro xadiidka saxiixaankii kadibna wixii kasii dambeeya ee ilaahay uu furo haddii waxyaabaha kale aan bartay luqadda carabiga alxamdulilah si fiican ugu hadlo waxaan ku dhegeysto inta badan luqadda ingiriisiga oo aan maxaa toole hadda muddo barashadeeda waday ida lafteeda maxaa toole aan ku hadlo waxaan ku dhegeysto iyo qaybihii kale waxbarashada waa badan tahay qaybihii kale lahayd hadday noqoto xagga afkeena soomaaliga hadday noqoto maxaa toolay xagga taariikhda cilmi taariikh hadday noqoto maxaa toolay waaqaca iyo la socoshadiisa alxamdulilah ilaahay waa mahadle. waxaa kaloo mahadle waalidkay labadeeda waalid iyo cid kasta oo maxaa toolay igu garab gashay waxbarashadayda ama
daweynteedii markii hore dhammaan cid kasta way caawisay. maasha allah cabdiraxmaan, allah ku sharfo. waxaa laga sheegay sidoo kale inaad tiknolojiyadda la socoto. arrimaha tiknolojiyadda iyo la socodkooda maxaa kuu suurogeliya? bal waxay suurtageliyey maadaama hadda maxaa toolay tiknolojiyaddii maxaa toolay wax walba soo gashay. waxaan mar ka qayb galay dowro magaalada bureyda la dhaho waddanka sacuudiga weeye. jamciyad la dhaho jamciyad alcawaq albasari bureyda aan halkan uga mahadnaqayo maxaa toolay ragga maxaa toolay maamula kastaaf carabi ku hadla. haddana aan uga mahadnaqayo marka halkan waxaan kaga qayb galay dowradaas oo ahayd tababar combyuutarkan ku qaatay. combyuutarkii mobeelkii halkaas ayaan kasoo galay 2020 ayaan dowrada ka qayb galay. waxayna siiyeen combyuutar bay siiyeen alxamdulillah. hadda waan isticmaalaa combyuutarkan, waan isticmaalaa mobeelkan, waan isticmaalaa. waxaan ka isticmaalaa baraha bulshada intooda badan youtube, facebook, whatsapp. waad la socotaa wararka? aad baan ula socdaa maasha allah. wararka aad baan ula socdaa, wararka soomaalida, wararka caalamka. waagii hore idaacadda ayaan dhegeysan jiray oo maxaa toolay BBC-d ama VO-d ama idaacadda maxaa toolay jamhuuriyadda somaliland radio hargeysa waan aada ugu xidhnaa. ama idaacadaha af carabiga ku baxa. hadda intaa mobeelka qaatay maxaa toolay waan sii horumariyo maxaa toolay dhinaca baraha bulshada ayaan kusoo biray. oo waxaan aada ula socdaa wararka soomaalida. xasan galeyd si gaar ayaan u mutaabacaya. maasha allah, aadna wada mahadsanta. adaa mudan wala allah ku sharfo. waxaa jirtaa sida lay sheegay markii xanuunkaaga la sheegay ee la yidhi waa qalliin, in qiso ay jirtay in hooyada iyo aabbaha ay dhex martay oo hadal dhexal galaa. bal qisada dadka aan ogeyn iyo sideed noo xasuusin kartaa annagaba? markii loo sheegay hooyo ee la yidhi maxaa toolay iyadoo aan markaa iyadii la joogin lagu yidhi waa qalliin oo maxaa toolay indhaha waa laga saaraya. qof walba uu garan karaa maxaa toolay inay aada uga naxday ama aada uga murugootay. marka aabe ayaa ku yidhi maxaa toolay waxaa dhici karta in insha allah iska samir oo maxaa toolay insha allah ku ajiraadso. waxaa dhici karta inuu noqdo inuu aada ku anfaco, bimacnaa walaalihii oo dhan uu si ka badan uu isaga ku anfaco. marka bimacnaa hooyadeena qalbi qaboojinaya markaa u ahayd. alxamdulilah. qisadaas markaa qisadaas maasha allah. markaa aabbaa hooyo ku yidhi waxaa laga yaabaa inuu ilmaha kale oo caruurtaada kale oo dhan uu kaaga fiicnaado oo ku anfaco. samir. qisada waa sidee wey. allahu akbar, allahu akbar. maanta tana waad guuleysatay inaad kaalinta koowaad somaliland oo dhan aada u gasho tartanka qur-aanka kariimka. maasha allah. bal waxaad nooga warantaa markii aad halkan hargeysa timi maxaad rajeynaysa horta ee tartanka ka qayb galaysay? tartanka sanadkii hore waan ka qayb galay. markii sanadkii hore maxaa toolay aanan kaalmaha hore soo gaadhin. insha allah waxaan ku talagalay inaan sanadka dambe aan isu diyaariyo. ilaa rabadaankii hore ilaa iminka alxamdulilah waxaa waday diyaargarowgii. markaan halkan imi aad baan u rajeynayey. dhammaan dad badan baa ii ducayey. yani waxaan rajeynayey kaalinta koowaad oo ku talagashnaa oo dee maxaa toolay meesha ugu sarreysa ayay ahayd. laakiin yani qaabkaan aaminsanaa ismaan lahayn ad kasoo bixi karaysa kaalinta koowaad. waxaas lahaa haddii kaalinta labaad saddexaad aad kusoo baxdo. laakiin mar walba dhinaca ifsaalada ama maxaa toolay ifaalada ama tafaa'ulka rajada waa rajeynaya run ahaanta. ilaahayna waan weydiisan jirin kaalinta koowaad uu ii fududeeyo. ilaahayna uu ii fududeeyo. dad badan oo ii soo ducayey oo maxaa toolay qaar aan garanayay iyo qaar aanan garanayn ba isugu jira. aad ba halkan iyagana maxaa toolay inuu ilaahay khayr badan siiyo aan ugu ducaynaya. asbaabahaas leedahay way kuu sahashay maxaa ka mid a? tusaale ahaan oo kale miyaad soo jeedin jirtay oo kale, miyaad ducaysan jirtay oo kale, maxaa ka mid a waxyaabahaas leedahay way kuu saacideen? sababta ugu weyn akbar sabab waxaan is leeyahay waxa weeye ducada ayuu ilaahay aqbalay.
dadaalkuna alxamdulilah dadaal waa jiray. waxyaabahan maxay toolay aadka uga mahad sheegan waxaa kamid ah macalin oo maxay toolay markii ugu dambeysay aan wada socnay quraanka intii u dhaxaysay markii aan kusoo baxay tartankii isreebreebka magaalada Caarigaabo iyo maanta intaan la qaban tartanka madaxweynaha waxa u dhaxaysay muddo 2 isbuuc ah. marka waxay la socday macalin halkan isaga ugu mahad celinayo oo maxay toolay Jaacad Qani la dhaho kaas oo maxay toolay quraanka si fiican maxay toolay iga dhageystay inta isagana aad baan ugu mahad celinayaa. يعني مدة 3 jeer ayaan dhameeyay intii 2 isbuuc u dhaxaysay quraanka dhameys markii lagu dhawaaqay shalay in aad tahay kaalinta koobaad aad gashay dareenkaaga soo noqdo madaxweynihii qaranku fadhiyo culimadii oo dhan fadhido gulihii wasiiradu fadhiyo ummadii oo dhan fadhido aad baan u farxay dareenkaygana wax ugu weyn waxa tolaan ku cabirayo waxa weeye inaan u mahad celiyo ilaahay kasoo inaan mahad celiyo labada waalid oo maxay toolay aad ila soo dadaalay marar badan ayaa macalin guriga laga qabtay marar badan ayaa maxay toolay yani macalin gaar ah laga qabtay labada waalid aad ay mahadsan yihiin. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ama ducaha kaga qayb qaadato dhiirigelin kaga qayb qaadato madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaban qaabiyay tartanka wasiirka wasaaradda awqaafta agaasimaha wasaaradda awqaafta isduwaha gobolka Sanaag wasaaradda awqaafta oo maxay toolay isagan aad ugu mahad celinayo macalin Sadex Farsame dhammaantood qayb ay ka qaateen. dad badan ayaa jiraan ilaa weeyo maxay toolay laakiin qof kasta insha Allah oo ducaynaya ilaahay khayr badan hasi cabdiraxmaan gabagabadii wareysiga ayaan soo gaarnay nolosha hadafka ugu weyn aad ka leedahay ama yoolka ugu weyn aad leedahay gaadhi muxuu yahay raalli ilaahay yani waxaan dhammaanteen aynu noolnahay waxaan quraanka u baranno aan u shaqaysano ama ha noqoto camal cibaado ah oo aakhiro ama ha noqoto camal adduunyo aynu wanaajinayno ilaahayna aynu khayr ku weydiisanayno aynu ajar kaga rajaynayno dhammaan waxaas dhan wax ka weyn maxay toolay waxaynu sameynno waxa weeye raalli ilaahay kadib ay intaas ay imanayaan yoolalka maxay toolay ka sogsokeeya maxay toolay hadda maxay toolay waxa ka qayb galay musaabaqaadkii ama tartanadii lagu qabanay magaalada Caarigaabo kaalmo ayaan ka soo wada galay waxa ka qayb galay musaabaqadii lagu qabtay magaalada Hargeysa kaalinta koowaad ayaan qaatay madaxweynaha Soomaaliland insha Allah inaan maxay toolay musaabaqooyin kale oo badan aan maxay toolay ummadda ku matalo maxay toolay aan maxay toolay sharafta u soo hooyo gobolkayga qoyskayga wadankayga dhammaan ummadayda insha Allah musaabaqooyinkan isleeyahay insha Allah mustaqbalka ka qayb gasho wax kamid ah sida musaabaqada Dubai oo kale musaabaqooyinka kale ama heer gobol ha noqoto geeska Afrika ama heer caalami ha noqoto insha Allah ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ولا ركوف ضيو أنه لو كنت عيننا إن وقدم بين تلوين كتضبطن با وحلقة يابا أو باهي قارة قبا إن أي كوروران إن أنا وحبق قبان كرين أنا وحبق قبسن كرين dadka iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ay ku dhageysanayba fariinta ama talooyinka u diray samxay fariintaan u diray waxay tahay maxay toole qof walba inuu dadaalo mar haddaad nooshahay fursad ayaad haystaa mar haddaad nooshahay ilaahay maxay toole fursad ayuu ku siiyey inta aad nooshahay insha Allah inaad maxay toole ku dadaasho sidaad aakhiro iyo adduunba u liibaan lahayd insha Allah inaanad maxay toole aanad joogsan oo aanad maxay toolay gadaal u noqon maxay toolay insha Allah dadaasho inaad ilaahay barido inaad ilaahay isku xidho dadka ka agdhow qof kasta oo maxay toolay caawin u baahan maanta in ay caawiyaan maxay toolay ay ajar ku raadsadaan anigu maanta cid ugu weyn aan u mahad sheeganayo ilaahay ka soo goob xawey waa qoyskayga wax badan iga caawiyay labada waalid waan hore u sheegay walaalahay maxay toolay oo maxay toolay laftooda in badan caawiya macna qof walba qofka u xiga qaraabadooda inuu maxay toolay caawiyo
qofkuna inuu isagu dadaalo dhammaan arrintaas waa talada gaarka ah talada aan dhammaan siinay cod kasta oo fahmaysa afkaygana waxa weeye maxay toolay in maxay toolay ummadooda u dadaalaan in maxay toolay qof walba in uu maxay toolay yeesho maxay toolay hadaf uu maxay toolay ka shaqeeyo siduu u dhabeyn lahaa yani waxyaabaha ina haysta waxa ka mid ah maxay toolay in waqtigii la dayacayo in maxay toolay maanta ay badatay waxyaabaha maxay toolay aan qiimaha badan ku fadhiyin ay dadku mashquulsan yihiin ama ha noqoto dhibaatooyin jira oo maxay toolay la weyneynayo ama ha noqoto maxay toolay baraha bulshada oo maxay toolay dhinaca khaldanaa looga faa'iideysanayo in qof walba uu maxay toolay garto waajibka ku toosan ee maxay toolay ummadiisu u baahan tahay in uu uga soo baxo waajibkii uu ilaahay saaray oo adduunyada u keenay kulley waan ku yara dheeraaday laakiin maxay toolay in maxay toolay fadhiga maxay toolay laga kaco ummadda loo dadaalo insha allah aad iyo aad baad mahadsantahay walaal cabdiraxmaan sheekh jaamac saalax allah ku sharfo walaal hambaliyo waanu kugu hambaliyayna anaguna kun jeer baad mahadsantahay walaal